بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد أنا في صواحلي ما أقانه لكن آيات كل آخرين وحن قرتين لقوا الرمي بر الوالدين وحن اسكت يدونا أنتي ونصوص أخرية إن كتجو بلنا إنكم بيرين كرا إن تلبعوا أنا جهرين مركنا كورنا لبدا والدي وسمفلكودا أفر سورة القرآن إلهي وحكت المامة وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة النساء أنعام إسراء في سورة الأحقافنا وبوالديه إحسانا شنطة آيادود إلهي إحسان بكت المامة الله سمعيه في سورة العنكبوتنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إلهي تلمامية في سورة اللقمان إلهي وحت المامية أيضا مطلقة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن مركان أنت أسكت الرط ضبضا آيادات إحسان يا حسن الشيقية وإن والدك الله صمفله إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن وكلا قرآن أبوك جور رميا والدك يا سيد الله صمفليه وحكى له قرآن كينات المامية وصمفلك والدك إنه كحدنين دين توهيسته والدك إنه مسلم يهي إنه قال يهي إنه فاسق يهي إنه فاجر يمدنا بكم حنا هدو والد بنقضة والصفة سلي يهي إنه والد يهي وحلي يهي الله صمفله صدرت بإلهي وحكت المامية سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة بإلهي المامية وصاحبهما في الدنيا معروفة لبدا والد إلهي وحي حقي ساهديكو إلى هذان كتك كأقبال بالليل أما وحكى صهره وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لبدا يدودان أخرية لبدا بإلهي وحكوت المامية والدكو إنو السمفلي هي أدون كان لوغو السمفلي دين توهيستا وحي دون تبها النغطي سيدا أوجد waxaad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilada waalidka sida uu xoojiyey ama se uga warramayo bale marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada qur-aanka ku ammaanaya nebiye ka mida ilaahay wuxuu ku ammaanay inay waalidkood qaar u samafalo ahaayeen saa daraaddeed baa ilaahay nebi yaxya wuxuu ku tilmaamayaa wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya inuu ahaa mid u samafala labadiisa waalid mana ahayn baa ilaahay leeyahay jabbaaran casiya mid jabaruud yacni labada aayadood dambe aan tilmaami doono aayaddan iyo aayadda dambeba ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waalidka oo loo sabafali waayaa inay jabbaarnimo tahay saa daraaddeed baa ilaahay nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya waalidka markaas haddaad samafalkiisa ka tagto وتجبر يتكبر أي إلهي سبحانه وتعالى كنت المامية شقي يعسنا ولا كنت المامية إنه قف عاصي يهي وقف شقي يهي وصفات كاحن حن لا يهي بقى إلهي كصفين يا أنبيادنا لقاء فينا يناني تعالهين وحقوق فلان طاعة والد لا طاعية سبب فالكود وهالكي جارسي سنتهي قصة إلهي وقوى الرمى يا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل إلهي قرآن كوحو كنت المامية نبي إبراهيم إن إلهي وحيودي إنه ويل كيسي إسماعيل قالوا يدو الله يتحاميو دبتنا إن كيسي مو أصر ومنين من اللقون شبارين وحبك لطونا كما السمين ورعد بو شيء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويل كيجيو وما ويل يرهيجيو وحا الريال يقول تصي ورؤيا الأنبياء وحي وحا الله يفري inaan ku gowraco bal maxay adiga kula tahay buu weydiinaya waxa la weydiinayaa nabi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa ayay kula muuqataa isna wuxuu leeyahay abati fa'al ma tu'mar satajiduni in shaa Allah min as-sabirin abba wixii alla ku farayeel waxaad heli doontaa
haddii rabbi xukumo anigoo ka mida inta sabirta wuxuu ku ateecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo wax ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysa wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisantahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku ateecay inuu gowraca aqbalo idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweynee ilaahay qur-aanka inugu faray nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay malcuun inuu yahay labada waalid ninka caaq ku noqda ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay cuquuqul waalideynku sidaa awgood waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa waxoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya mansilada ay gaadhsiisan yihiin saxaabigii la odhan jiray xaarisata bnu nucmaan xadiidka ibnu xibbaan warinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahy baynamaa ana aduuru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu xaarisata bnu nucmaanin kadalika albir anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaan sawt qur'aan nin akhrinaya maqlay dabeetana waa kuma baan idha waa xaarisata bnu nucmaan baa la yidhi yani nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albiri buu nebigu ku tilmaamayay waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay ina khayru taabiciin rajulu yuqaalu lahu uways walahu waalidatun wakana bihi bayaad famuruuhu falyastagfir lakum taabiciin waxa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uways la yidhaahdo ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa waana u samafali jiray baras buu qabay cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala dabeetana ilaahay waa ka fayday waxaa kaloo nebigu tilmaamayaa saxaabadiisii buu ku leeyahy haddaa aragtaan dembi dhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha cumar bin alkhadaab baa wuxuu raadiyey xadiidka saxiixu muslim ku yaalla markay reer muraad ama qaran qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalada ee jihaadka ahaa ayuu weydiin jiray war ma idinku jiraa ninkaasi akhiiran waa loo tilmaamay xadiidka lafdigiisu waa dheer iyo isagoo kooban baynu tilmaamaynaa waa loo tilmaamay wuu helay ninkii war barastii ninka ka bogsaday barta yare cadi ku hadhay adiga maye haa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqlo warkaa sheegaya ii ducee markaasuu u duceeyey kadib buu cumar waa amiiruulmu'miniin wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa aan waaliga muslimiinta ee hore govarnarka muslimka ee meesha aad ku socoto xukumaya aan waraaq kuugu qoree waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso fii khabraa'i innaas inaan ka tirsanaado dadka inta aan la dareemin inta aan la buunbuunin qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh saa awgeed buu taabiciga kani wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan layba ogaanin aan sidaa ku tago beri dambe ayuu nin ka soo xajay yaman ayuu cumar qisadii u sheegay uu yidhi ninkaa maaragtay haa buu yidhi waxaan ka imi buu yidhi isagoo guri yaroo buula ku jira oo maryo dildillaacsan sita oo laa yaabah bihi nnaas dadku aanay waxba weydiinin markaasuu yidhi war ninkaa aad arkayso nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan ka ducaysta oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dheh ninkii xajkii markuu ka noqday buu uways u tegey markaasuu yidhi waysow ii ducee ways baa yidhi adigaaba iminka xajka ka yimo camal saalixa soo sameeyey safarna ka soo galay ee inoo ducee markaasuu yidhi may adigu ducee dhowr jeer markuu ku celiyey ayuu ways markii dambe yidhi war ma cumar baad aragta markaasuu yidhi haa dabeetana waa u duceeyey cidna hay sheegin buu yidhi oo iskaga tegey burduu siiyey maro la xidha buu siiyey magaaladu waxay isweydiinaysay warkii uways ahaa maruu helay maanta talow yaa siiyey yacni ninkani faqri intuu ka qabo iyo xaalkiisu halkuu joogo iyo nebi maxamed halkuu gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam waa laba kala fog dadka agtoodana waa ninkaa marada lagu jamanayo laleeyahay maanta maruu helaye xagguu marada ka keenay la isweydiinayo sidaa awgeed ayuha alxiba
hadduu nebigu ku tilmaamayba ninkii u fiicnaa ama u khayr badnaa taabiciin sifada koowaad ee laynaga siiyey waxa weeyaan inuu waalidkii u samafali jiray waxaan si kooban u dulmari doonaa axaadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatoo tilmaamaya waxyaabaha tusaale layna siinaya waxyaabaha loogu samafalo labada waalid qur-aanku wuxuu tilmaamay in hadalka loo dabciyo in loo dhimriyo in loo samafalo wixii wanaag oo dhan in loo qabto waxay yidhaahdaan sida uu soo warinaya imaam albukhaariy fi ladab almufrad sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamayo abaa hurayra wuxuu arkay laba nin oo isdaba socda markaasuu midbu wuxuu ku yidhi maa haadaa mink war ninkani muxuu kuu yahay markaasuu yidhi abi waa aabbahay waa laba nin oo wada socdo isdhalay ayuu abu hurayra arkay mid buu yidhi kani muxuu kuu yahay waa wiilkii markaasuu yidhi waa aabbahay abu hurayra wuxuu ku yidhi laa tusamihi bismih walaa tamshi amaamah walaa tajlis qablah aabbaha weligaa magaciisa ha ugu yeedhin buu yidhi hebelow ha ku odhanin hortiina ha soconin oo haddaa israacdaan ha ka horrayninoo aabbaha ayuu ku dabagelin haddaa fadhiisanaysaanna aabbaha hortii ha fadhiisanin buu abu hurayra ku leeyahy yacni wuxuu barayaa adabka qofka muslimkaa iyo waalidka sida uula dhaqmayo waxaynu naqaanaa samafalkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa a wada maqashaan inta badan riyaadu saalixiinka ku qoran saddexdii nin ee godka galay ee roobka ka jirsada ee buurta dhagaxu ku soo dulundulcooday ee dabeetana uu daboolay waxay ku ducaysteen midba ducuu akhriyey midbaa ducadiisu waxay ahayd ilaahu waad og tahay inaan waalidkay u samafali jiray oo xoolaha markaan soo xareeyo carruurta iyo cidna inaanan waxba siin jirin inaan iyaga ugu horraysiiyo mooyaane labadiisii waalidoo waaweyn kadib ayaa maalin foofkii xooluhu la dheeraaday goor dambeo habeene buu soo hoyday waalidkiioo gam-ay buu caanihii soo lusay deetana wuxuu is yidhi waalidka ha toosinin caadadaadiina ha baajinin oo caanaha cidna ha ka horsiinin carruurtiisiiyo halkan gaajaysan ayuu labadiisii waalid caana la dul fadhiistay dadka waaweyn waxaa lagu yaqaanaa inaanay hurdada aada uga boganin oo qofku markuu da' gaadho inta badan waa yara seexdaa waa soo toosa ilaahay ninka wuu itixaamo labadii waalidna indhaaba waa kala qaadi waayeen waa seexdeen waagaa ku bariyey ilaah waad ogtay buu leeyay intaan caana la dul fadhiistay in waagu ii bariyey sidaan caanaha ula dul fadhiyo anigoo aan cid kala siinin ee ilaahu dhagaxa naga fayd buu leeyay yacni waa duco uu ilaahay ku baryayo inuu waalid u samafalay dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala ka fayday waxaa kaaga filan inaynu soo aroorino xadiidka ibnu maaja iyo khayrkiiba warinayaan ee jaabir ibnu cabdillaahi uu leeyay nin baa nebiga u yimi oo wuxuu yidhi ina lii maalan wa walada wa ina abii yuriidu an yajtaaxa maali carruur iyo xoolaba waan leeyahay aabbana inuu xoolahayga qaataa buu doonayaa nebigu wuxuu ugu jawaabay anta wamaaluka liabiik adiga iyo xoolahaba aabbahabaa isku leh adigu mar haddii aabbaha ku leeyahay waxaad haysatana isagaa leh ee cabashadaa ha la imanin cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhadaab baa waxa u yimi nin la yidhaahdo taysalata ibnu mayaas taysala waa nin khawaarijtii ka mid ah khawaarijtuna afcaal badanoo xunxun bay sameeyeen deetana wuu toobad keenay markaasuu cabdillaahi ibnu cumar wuxuu ku leeyahay war wax badan baa iga dhacoo dhib ah maxaan sameeyaa intii aan khaarijiga ahaa xaruuriga ahaa wax badan baan sameeyey waa ka soo toobad keenaye maxaan sameeyaa ibnu cumar wuxuu ugu jawaabay atafraqu الnaar wa tuxibu an tadkhula aljanna naarta ma ka baqaysaa buu yidhi mase rabtaa inaad janno gasho dee ninkani wuxuu ugu yimi waa intaa haa buu yidhi ii wallah qaala axayun waalidaak war labadaadii waalid ma nool yihin buu ku yidhi qultu cindii ummi hooyaa joogta buu yidhi aabba ma noole eh qaala fawallaahi low alanta laha alkalaama waacamtaha aطacaama latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir wuxuu ku yidhi ilaahay baa ku dhaartay haddaad hadalka u dabciso quudiso waxay cunto siiso jannaad geli haddaad dunuubta waaweyn iskaga tagta buu leeyay yacni ibnu cumar ninkaa khaarijnimada ka soo noqday le waa toobad keenay acmaasha wanaagga uu u tilmaamayo inuu janno ku geli karo wuxuu u tilmaamaya inay tahay waalidka inuu samafalo waalidka samafalkooda waxaad ka garan kartaa
inay nusuustu in badan tilmaamaysa in la ateeco waa inagii soo marray qisadii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil dhex martay nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu cumar oo gabadh guursaday oo jecel baa u yimi deetana wuxuu yidhi aabbahay ayaa gabadhaydii xaaskayga necabo wuxuu leeyahay fur kollay un waa wax diin ku saabsan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cabdillaahi bnu cumar u yeedhay buu ku yidhi yaa cabdalla bnu cumar طلق امرأتك عبد الله بن عمر وقبض فربو كيري نبي عليه الصلاة والسلام وهو أطيع أبها مركلة نبأ ويما أبي الدرداء صحابي اللي ورنشري مركز سيدي ريربان لاي هو يدينا مربطه وحي فرس أين انفره أبو الدرداء وحليه أنا وحن مغلبي للنبي عليه الصلاة والسلام وله الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع أنا وحن مغلى نبي قال أب والدك وأوسط أبواب الجنة الباب الجنة كوا وفي عنا مكونه حيا ويان هدات ربطه ده إلى أشياء الباب كا هدات ربطنا ده أدوس كذا يعدي كشرتابو لي محل الله قصة مفليا سيبر دلنت الضمبة هذا يقاط كوعنا ما وحن بوسة ما يا ما كم بوسة ما يا وسعر الرئيس أماها والله سما فليا hadday xaqu sheegitayna waa loo sheegayaa haddaanu adiga kaa qaadanayna cid uu ka qaadanayo aad garanaysaa aad u tilmaami doontaa ku dadaal waalidkaasi aanu naar u galeen hadduu jid naareed hayo kadu waxa kugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu kaga warramayo nebi ibraahim iyo aabbihii siduu la hadlayay wadkur fi lkitaabi ibraahiima innahu kaana sidiiqa nabiya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيدو آبه أبرييه وناقا وقلت الماما يقصدا قرآنك كسا أرورتي بس عدنا وقلت الماميسا أنت المامنو أبا هريرة قصديسي صحيح كسا أرورتي أبا هريرة وحليه هو يدي بانو ياري شرو دين توقو ياري شري قالت بايا هاي مركان دين توقو يارينا يعني نبي وحكا شيء شرتي يساقو حليه كالا يا إسلام الدين بوقو ياري يعني وحي وقو جوابيسا عن أدنما وحي كقبطة مركا كان إني نبي عليه الصلاة والسلام وحكا شيكتو أنا أويان هدنا النبي قوت تقابل عليه الصلاة والسلام مركزان هذا إلى الرسول كيسيه وهو يدبر الدين توقو ياري دبر تنوح وأديك كصاب سنبي مقاشيس إلهي بريب أبو هريرة ليه هي النبي محمد إن إلهي هو يدي هارون يا إلهي ويدي نبي عليه الصلاة والسلام أنتو قعما كرت أقول ربي بريب وحليه اللهم اهدي أبي هريرة إلهي يو هانوني أبي هريرة هو يدي أنا قد دعادي النبي كفر أحسن بو يلبان دبو النقضي مركان قريقي كدوي البابكي أيي قشفت إذا مغشي هو يسنقدي بي مغشي قريونا الباب مالا هينا وداه يرول اسكدوه مركان ساكو تريوار هلكاقا تشوك مركان سان مقليبي ولي بيها سنقدو دي بيها يسكو شبايستا إلهي دعادي النبي محمد بو أقبالي أوي إسلامتي oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa Abu Hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tiri buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay tiri soo gal buu yidhi waxay igu tiri ya Abu Hurayra ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nabiga markii hore isagoo ooyayo wixii nabiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ko ooyuu yimi إمكان أنا أويا النبي كون نقضي بيقول عليه الصلاة والسلام مرقص أنا بيقول إلهي رسولك سيو بشاريسو ربي الدعوة دي وأقبلي نبي عليه الصلاة والسلام أنتو إلهي أماني أو خير يجيبوا أيان هدنا أبو هريرة وحلاي وحن كويري إلهي رسولك سيو واحد هدنا إيه بريدة أنا جي هو يدي بين هيدتك نرجع على سيو الضومها لين إلهي نرجع على سيو نبي عليه الصلاة والسلام مركلوا أبو هريرة ودعي حديث صحيح مسلم بكي الله اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبو هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين نبي حوق دعي إلى هو أدون كاغا كان أدون يرها كان أبا هريرة
isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummadana jeclay si iyaguna ay jeclaadaan Abu Hurayra waa idinka arkay oo xadiiska Abu Hurayra laga waayo dadku maba rumaysna in badan idan waa jacayl loo qabo nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ugu duceeyay waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culimadu waxay yiraahdaan xuquuqul waalideynka markay taariifinayaan waa wax uu ka hado waalidka iyo aad sheegtaba yiraahdaan ayan kaan سأوجد بأن النبي عليه عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد إلهي الرا لها شيء وحكوشرا والد كرا لها شيء عرض الله نوحي كوشرتا عرض والد كبالير والد كهدات كعريسيسو وحيودو دينا ربي كعريسيسي سيدا أوجد وحو النبي التلمامي عليه الصلاة والسلام إن تكد داش أفر سولي قابع عبادة بدنو صحيح مسلم كقصدي كلا كنت عليه جريج عن كوت المامو نبي عليه الصلاة والسلام مركو شاقي سدح دي الموضة ضربتك وهضلي وحاو شاقي نين جريج الله يدهدين وشري أو عابدة أو مال أبحي كلي مالو كو عباديسته وقولوا انتو لستي دبقى يرى سرقله وهلكا كلي كو عباديسته هو يدي بصوب وغطوتمي دبتني سوغو صلاة حدن بوي أتميو يا جريج بيتري أمي وصلاتي بوي هو يا صلاة دبتنا صلاة دو اسكوت هو يا واسكا نوت مالنا بعد بيتمي سيدي سلك بو ويرد هدنا نكن وين عبادة وقاي هو يا صلاة بويري دبتنا صلاة دي بوسكوت مرصد حاد بيوتمي سيدي يو كلا دعضي دبتنا وي هبارت نكن عابد كالكا كوجيره إلهو isaga iyo dumarka xunxun istus bay tiri waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxun inay sarkaan waxa la yiraahdaa qisada meeshan waxa deganayd gabadh aad u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo Jurayj la amaanayo cibaadadiisa laga warramayo maqashay waxay tiri ka sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo أنا إذن تصدقنا تذكر بدبا الشياطين أو حماها جعل قف أن وحبه وجيسن بي وحيلا ده أنا حرقة ويدارين دوني أنا جاي قسمة ويصاب بحدي جريج ويصبان دكتي لكن كان عباده وقاي قوسار أبدو بيساو تقانين مدحول الراعو ماشي شوقه أي قبل يسود دكتي الماء دش يا دلائي بالليل المهن واحد تري جريج بالدلائي جريج با سو معدي سيبل الدمية ماشي وكل عبادة سنشري بالله يري توقع حمي انتو هبله هو إذا ارتبوا هل كان ودات سكدقيا واحد عضي مركا وحيد وربل المها ويارا المهي بالله كان المهي بوجوشي لا برق عدود بتكذا كدب انتو المهي بوجوشي من أبوك وربها وايو المهي يرابا إلهي كهدي وحيد وقوسار كجال أرجع الراعة ونك حولها شرا قصدني لبا وحبي تلماميسا كو وحي تلماميسا عبادة أنفعيدة وحي كلو تلماميسا ولقى بعبادة بدنا وهدي ودقية سلانت وحكاقات تقانا خطر كسوان تاي وايو إسلانتاسي هباركي هبارتي والله يستوصي إساقيا وحي كو هبارتي إساقنا مركي دنبا إلهي وحو كوبت بادية وكو كرامي عبادتي سترة بدنيده وسمينيه أصلنا وحابي علماء دوليه فرض كاللوغا مبحو لكن هذا السنة كتيرا هدي والد كيارو وحواجب كوغاين هات هذا وهي السنة هو سنة والد كاين دو جوابتانا وفرل إذا وين تكبح دابي علماء دو إذا هدانا دو جوابتا والدك وحينو تلمام إنا مرك والدك هبار كيس نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام حديثك أصحدي صدح بريو حق لما عليو وحكم دعوة الوالد روايات كقاركودنا دعوة الوالد على ولده أي المامية هبارك وهبار والد المهيسة وكل عيا سيبا هو ينك وحن لا يفكر إنه هبارك برني إن كارك وكل عضية هبار بعض قبطادية وحكن هبار بقبيون إن بدنا الصوماليان وتاقلا أنا إسلامها كويرة هبار بعض قبطا هبار كي لو دعية بقبان إذا وحفي عن قفك مسلم كاهي سقنا إنه وحفي عنك هذله إن أنو إريض حن عرب كي سبرين
سأوجد من نبي وحلي هبارك والدكو ودعاه وحلنا وحكم ده وحيابا والدك الله قصة مفليه إن أصحابتي والدك يسجد داية عدوا الله صاحب كائنات حريرسه هذا دكتور عيد أبها ما هو يدا احترامي شرطه صاحبه إلهي إنها حريرسه عبد الله بن عمر يارد يسي عبد الله بن دينار تابعي اللي ورن شري يقو حرم كيمو كان غضي دحدا مرية أيان الريربادي كصابحي دبتنا ابن عمر بعد ضمير وفشانا نسي عمودي سينا وفري عبد الله بن دينار باوحولي ابن عمر وننكا كاني الريربادي ونوح يربي كو قنعانه هذا عمود سيسي ما حد ضميرك وقدرت بعد ضميرك هاجا سكفو شناتي وحكولي ننكا كان أبيه أهل ود عمر بوها آبهي صاحب كي بوها مركا آبهي ددكو جعلايا صاحبك لها مر هدو ويل كان دلي ساس بان كو خديدين يا ابو تلمامي صلة الوالد أهل ود أبي نبي قايلين إن أبر البر سموحا وفي عن حديدك ووالدك حديدية ددكي والدكي جعلايا والدك أما أباها نقضى ما هو يدها نقضى انت حديدين جيران إناد حديدسو قاببك الله قصة مفلا وحكم ده إن إلهي بريدي سأو بديسيد نبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي عمل كبني آدم كوينو قوه إلا إيا صدح مويان صدح دانا وحكم دها ولد صالح يدعو له ويل صالحة وأسود دعية بل النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامي يا جنة والد كتشرة أيا درجة دي ولها كر لوغا قاضاه مركز هذا أن لهذا إلهي وانت ما انشغل سنة حقي كتمي فيقال باستغفار ولدك لك ودم بدافكو إلما هذا الشيء إلهي يكوسو ويديني سبحانه وتعالى آبها هدو نولي هو يدا هدي نولي هدي دنتين با إلهي وبري دي نوليهين يا هدي دنتين با إلهي وبري وحياد عبادة وصمين كرترا وصمين شرع وبنيي نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامي قبل با وحي تري إلهي الرسول كيسيه هو يدي جارية بنسية دبتنا وين دمت جارية دي واتنضى يقصر نقطة محن سمايا وحي كعب سطين صدقة الله قبل وايه نبي عليه الصلاة والسلام وحكيري أدقنا أشركا جواد هالشيء إن حالكنا إلهي بكو قصر عليا قاضو على كل حال وحي شعل دينا حج تبيو كحج فهم كسو كوبيا وحي عبادة شرع وبنيي تان شرع وبنين معها وحي شرع وبنيي عبادة أنا وصمه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.